Dunida waxaa soo maray boqortooyo fara badan, qaar lagu xusuusto dagaallo ay ku guuleysteen, qaarna dad ay gumaadeen. Waxaa jira hogaamiyeyaal xooggooda lagu cabbiro cadadka dhiigga ay daadiyeen iyo baaxadda burburka ay ka tageen. Laakiin hal nin ayaa jabiyey xeerkaas, wuxuuna ahaa nin aan xukumin dadka keliya, balse xakameeyey nafsadiisa markii ay ugu carada badnayd. Wuxuu lahaa ciidan awood u leh inay qabsadaan qaarad dhan, laakiin wuxuu doortay inuu dagaalka ka dhigo mid qalbiga ah. Mana jiran qof uu gacantiisa ku dilay intii uu boqor ahaa. Kadib dagaalkii Kalinga, mid ka mid ah kuwii ugu dhiigga badnaa, waxaa istaagay dhiiggii, wuxuuna noqday boqor isbedelay. Haddaba sheekadeennu maanta waxay daaran tahay boqor aan weligii qof dilin, balse ay cid walba ka cabsatay. Magacaygu waa Cabduuli Macalin Malto, halkanina waa Hogan 24 Media. Haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u ogaano tirada danaynayso. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino. Share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. Magaciisu wuxuu ahaa Ashoka Maurya, mid ka mid ah boqorradii ugu awoodda badnaa uguna saameynta weyneed ee abid soo martay Aasiya. Wuxuu ka taliyey boqortooyadii Maurya oo ahayd boqortooyadii ugu ballaarneed ee ka hanaqaaday dhulka Hindiya. Ashoka wuxuu xukunka la wareegay qiyaastii sanadkii 232 ka hor dhalashadii Nabi Ciise naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna xukun ka hayay ilaa iyo sanadkii 268. Boqortooyadiisu waxay ku fidsaneed inta badan dhulka Hindiya iyo qaybo ka mid ah Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh maanta. Aabihiis wuxuu ahaa boqor Bindusara, halka awowgiis uu ahaa Chandragupta Maurya oo ahaa aasaasihii boqortooyada. Noloshiisa bilowgeeda wuxuu ahaa hogaamiye dagaal badan, balse dagaalkii Kalinga kadib wuxuu si buuxda ugu leexday dhinaca nabadda iyo diinta Buddhism-ka, taasoo noloshiisa iyo boqortooyadiisa beddeshay. Kadib markii uu arkay meedadka iyo barakaca iyo burburka uu sababay, Ashoka wuu isbedelay. Waxa uu qaatay diinta Buddhism-ka, wuxuuna go'aansaday in uu noloshiisa u huro cadaaladda, nabadda iyo weliba u adeegidda dadka. Tani waxay ka dhigtay boqor si buuxda u joojiyey dambiye iyo dilal, balse si la yaab leh haddana waxaa la sheegaa in cid walba uu cabsi ku beeray. Sidaas darteed, Ashoka wuxuu noqday hogaamiye aan qofna dilin, balse ay dunidu ka baqday. Boqor Ashoka wuxuu xukumayay boqortooyadii Maurya, taasoo ahayd mid ka mid ah dowladihii ugu xoogga badnaa ee soo maray qaaradda Aasiya. Marka uu Ashoka la wareegay xukunka, boqortooyadiisu waxay ahayd mid ballaaran, balse markii uu dhammaystirayay ballaarinteeda, waxay gaartay heer ay noqoto boqortooyadii ugu weyneed ee taariikhda Hindiya ilaa iyo wakhtigaas soo marta. Boqortooyadiisu waxaa ku sugnaa dad kala diin, kala af iyo kala dhaqan ah, balse dhammaantood waxaa isku hayay isagoo adeegsanaya cadaalad, nidaam sharci oo adag iyo maamulka wadaniyadeed. Wuxuu sameeyey isku xirnaan dhaqaale, waddooyin ganacsi iyo nidaam ay fariimaha iyo wararka isku dhaafsadaan boqortooyadoo dhan. Inkastoo aanu adeegsan xoog military intii dambe, haddana boqortooyadiisu waxay haysatay ciidan aad u tiro badan, diyaarna u ah inay difaacdo xadka. Wuxuu ahaa boqor awood badan leh, balse xakameeyey awooddaas, waana taas sababta loogu xusuusto in badanna taariikhyahanadu ay ugu yeeraan boqor aan xoog adeegsan, balse aan cidina ka hortagi karin. Inkastoo boqor Ashoka uu si buuxda u joojiyey dagaaladii iyo dilkii, haddana weli waxaa lagu tilmaamaa boqor ay dadka oo dhan ka cabsadeen. Laakiin maxaa sababay cabsida ay dadka ka qabeen boqor aan xitaa ciqaabin dadka, xabadna ridin? Waxa uu lahaa awood sharciyeed oo aan laga doodi karin. Hal amar oo uu bixiyo boqortooyo oo dhan ayaa dhaqaaqaysay. Waxa uu dhisay nidaam maamul oo aad u adag. Waxaa jiray ciidan xoog leh oo joogto ah, xitaa haddii uusan adeegsan. Dadku waxay ogaayeen in haddii ay ka hortagaan ay wajihi doonaan ciqaab sharci oo degdeg ah. Wuxuu noqday astaan lagu garto xikmad, cadaalad iyo kala dambeyn. Waxaana mararka qaar la yiraahdaa dadku waxay ka baqaan boqor gacantiisu dhiig leedahay, balse si ka daran ayay uga baqaan hogaamiye aan dambi gelin
maxaa yeelay waxaad garan la'dahay sida uu u fekerayo. Ashoka wuxuu adeegsaday cabsida awooddiisa, balse ma ahayn cabsi ku dhisan baqdin ee waxay ahayd cabsi ay dadku ku qabeen ixtiraam iyo karaamo. Waxa uu diiday inuu yahay boqor u adeegta naftiisa, wuxuu isku beddelay adeegyo dadkiisa u adeegaya. Sidaas darteed boqortooyadiisu waxay ahayd mid leh amar, nabad iyo xasilooni, balse cidina ma jeclayn inay khilaafaan. Ashoka waxa uu caddeeyay in hoggaamintu aysan ku salaysnayn hanjabaad, balse ku dhismi karto akhlaaq, cadaalad iyo xigmad. Boqortooyadiisu waxay sii jirtay xitaa kadib dhimashadiisa, sababtoo ah dadku ma ahayn kuwa ka baqanaya ee waxay ahaayeen kuwa ixtiraamaya. Tani waxay tusaalaynaysaa inaad awood yeelan karto adigoo aan wax dilin. Sidoo kalena waxa uu caddeeyay in hoggaamiye awood badan uu noqon karo mid dadka u naxariista haddii uu go'aansado. Dhanka kale wuxuu si cad u muujiyey in hoggaamintu aysan mar waliba ku imaan hub iyo xoog, balse qofka hoggaamiyaha ah marka uu naftiisa xakameeyo uu xukumo qalbiyada dadka, la'aantiisna aysan xukun jirin. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar, sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan. mahadsanid.